dadweynaha ku dhaqan deegaanada miyiga ee hoostaga gobolka Togdheer ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen shimbiro xanuunsanaya oo ku soo daadanaya ceelasha baraagaha iyo goobaha kale biyaha laga cabo kuwaasi oo laga cabsi qabo inay xanuuno ka dilaacaan qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee hoostaga gobolka Togdheer oo la hadlay telefishinka Sahan ayaa fariin u diray wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland shimbirahan dhimanaya shimbirahan horta qooleyda u badan marka arinta in lagu aweersanaado cudur baa ku dhacay shimbirahaas cudurka in la baaro ayaan jecelahay sababta aan u leenahay xalal baaro wax kale ma aha ceelashiyeeni laga cabiyo ceeg iyo for example meesha la harada gubata xiliyo afkay kala hayaan shimbirihii marka iyagoo nafwooday meeshii imanayaan biyihii bay cabayaan halkiiba ku daadanayaan oo ku dhex dhimanayaan ceelashii dadkiina way ka cabayaan bisadihiiba iyaguna geliga meelaha bushashka dhexdooda markay ku daataan shimbiruhu ka qaadanaya bisadihuna waa domestic oo waa inala nool yihiin gurigii bay nala joogaan weelkeennii baa wax ku cunayaan marka wixii waa la isu gudbinayaa waa hawl culus oo aafo weeye runtii waa aafo xayawaankii yaryaraaa way galbadeen meesha way ku galbadeen xanuun baa haya waxaan leeyahay dee ha la baadho dawladdu ha baadho hay-adaha ha u soo dirto xanuunadaa laayay qooleydu aad bay ugu dhimatay meesha waxaan leenahay beli weyn oo garagara la yidhaaho weyn oo ilaa dhowr kilomitir kaa way ku baktiday biyibaa roobka waaweyn baa helay biyibaa qaaday meeshii buu geeyey baraagii wuu geeyey ceelashii wuu geeyey arligii wuu iminka uu uraya arligii qoladina waxay soo gurtay ilaa 50 midh baa laga soo saaray barkada saakaan dul taaganahay halkaa waa kuwa yaala sawirkooda waa idinka arkaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin bahashi qooleyda loolan jirtay xanuun baa ku dhacay xanuunka wax laalay wax laga qabtay ma jirto in degdeg loogu yimaado ayaa u doonaynaa oo aan leenahay ha loo yimaado deegaan badanna way aad bay ugu xanuunsadeen way ku bukoodeen goroyood baa ka mid ah boodley baa ka mid ah ceeg baa ka mid ah anigoo ah Mahad Faarax gudoomiyaha ilaalinta duurjoogta deegaamada afka Soomaaliga lagaga hadlo deegaankan ku sugnahay waa deegaanka ceeg ee koonfurta magaalada Burco waxa weeye halkan maalmihii u dambeeyay warbixin ayaa jirtay ka soo yeedhay oo had shimbir deegaankan ku dhimanaya gaar ahaan shimbirta loo yaqaan qooleyda waxay ku dabar go'day deegaanka ceeg la yiraahdo waxa kaloo ay shimbirtan ku dhimatay deegaanka gorayo oo ku yaala waqooyiga deegaanka ceeg iyo deegaamadan oo dhan waxa weeye shimbirta baqtigeedii waxa weeyaan iyo meydkeedii waa halka tuulana waad aragtaan waxa weeye imika halka barkadan ay joogno quraynta ku dhimatay waxaan ku yiri 50 xabo way gaarayaan marka wasaaradda deegaanka waxaan ugu baaqaynaa oo leenahay waa inay si degdeg ah u baaraan xanuunka shimbirahan ku dhacay waxa weeye haddii ay jirto cid wax yeeshay oo sunaysay iyo haddii jirto uu jiro xanuun gaar oo ku dhacay weyn la ogaadaa oo laab la mariyaa marka wasaaradda deegaanka waxaan ugu baaqaynaa marka koobaad iyo marka labaad ba leenahay war Hargeysa uun baad joogtaan wadanku Hargeysa qura ma aha deegaamada kaalaya Shucayb Xasan Dheere Sahan TV magaalada Burco